Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa diiday casuumaad loo fidiyay si uu uga qayb galo shir madaxeed lagu xusayo 50 sano oo xiriir diblomaasiyadeed ah oo ka dhexeeya Midowga Yurub (EU) iyo Shiinaha, sida uu ku waramay Financial Times. Sida laga soo xigtay ilo-wareedyo aan la magacaabin, Beijing waxay u sheegtay mas'uuliyiinta Midowga Yurub in Ra'iisul Wasaare Li Qiang uu la kulmi doono madaxweynayaasha Golaha Yurub iyo Komishinada Yurub halkii uu Xi Jinping ka imaan lahaa. Caadiyan, Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha ayaa ka qayb gala shirarka Brussels ka dhacaya, halka madaxweynuhu martigeliyo marka lagu qabto Beijing. Si kastaba ha ahaatee, madaxda Midowga waxa ay doonayeen in madaxweynuhu uu shirka ka soo qayb galo si sare loogu qaado muhiimadda munaasabaddan xusaysa nus qarni xiriir ah oo u dhexeeya Brussels iyo Beijing. Madaxweynaha ayaa ka baaqsaday shirka xilli xiisado siyaasadeed ay ka dhex jiraan Midowga Yurub iyo Shiinaha, gaar ahaan tan iyo markii Ruushku weeraray Ukraine sanadkii 2022. Midowga ayaa Shiinaha ku eedeeyay in uu si dadban u taageerayo Moscow, sida uu sheegay Financial Times. Sidoo kalena, sanadkii hore Midowga Yurub wuxuu canshuur kordhin ku sameeyay ama ku soo rogay baabuurta korontada ku shaqeysa ee laga keeno Shiinaha, taasoo xiisadda sii xoojisay.